السلام عليكم أصحابتي خالقة maanta waxaan idin hayaa cashir aad u muhiim ah kaasoo ka hadlaya sidaad offline iskaga dhigi lahayd messenger iyo Facebook hadal adigoo internetka ku jiro sidaad iskaga dhigi kartaa offline adigoo ku jiro ama qadka qofka ka baxsan camal saaxiibada iskaga qarin kartaa hadda idin tusaaya daawasho wacan marka hore waa inaad soo gashaa Facebook-gaaga oo aad soo kicisaa markii uu ku soo kaco Facebook-gaaga marka hore waxaad ku dhufanaysaa saddexda xariiqan oo geeska u jeeda ayaad ku dhufanaysaa haddii aad wadato telefoon Android haddii iPhone yahayna saddexdan xariiqan hoos ayuu ku leeyahay waaka markii aad ku dhufato waxaan dhan soo soco hoos soo aad ilaa aad ka imaado setting and privacy kadib ku sii dhufo setting and privacy kadib waxaad ku sii dhufataa setting ayaad ku sii dhufanaysaa markii aad setting ku dhufato halkan hadda noo soo qabanaya ku xisaabtan shaqo kale yar aan oo dhib marka inta aad inactive iska dhigta xaggana sidoo kale waa tagaynaa waa kana markii aad halkan imaado hoos ayaad u soconaysaa ilaa aad ka tagto active status waad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufato hadda waa inta taabanaysaa ku dhufanaysaa waxa lagu dhahay you want to be able to see your friends muku arki karaan in saaxiibada muku arki karaan inaad active tahay okay markaad kan saas dhahdo kadib messengerka aadayna asigana waa kana kadib messengerka markaad imaado meesha profile-kaaga oo sawirkaaga saaran yahay ayaad ku dhufanaysaa halka sawirkaaga uu saaran yahay ama wixii ku saaran ayaad ku dhufanaysaa kadib active status aad taabanaysaa inta la taabanaysaa kadib taan una dhaysaa sidaas ayuu offline ku yahay موبايلك